huge thank you. shirkadda samaysa diyaaradaha ee qaaradda Yurub ee lagu magacaabo Airbus ayaa markii ugu horeysay daaha ka rogtay nooc cusub oo diyaarada oo ay dhowr jeer tijaabisay. Diyaaradda ayaa loo nashqadeeyay si ka duwan muuqaalka diyaaradaha caadiga ah ee hadda adduunka laga isticmaalo, waxaana ay leedahay baalal dhaadheer oo gadaal u jeeda iyo af hore oo ka duwan diyaaradaha kale. Waxa ay shirkaddu sheegtay in ay noqon doonto mid loo isticmaali doono rikaabka mustaqbalka kadib marka la hubiyo, waxaana la sheegay in 20% ay yareyn doonto isticmaalka shidaalka. Diyaaradan cusub ee ay soo saartay shirkadda Airbus waxaa dhowaan lagu soo bandhigay bandhigga caalamiga ee diyaaradaha ee Singapore. Diyaaradan ay samaysay shirkadda Airbus ayaa aad uga yar diyaaradaha kale. Shirkadda ayaa la sheegay in ay tijaabada arrintan ay sameynaysay tan iyo sanadkii lasoo dhaafay bartamihiisa, waxaana hirgelinta iyo samaynta diyaaradda ay bilowday sanadkii 2017. dhererka diyaaradda ayaa waxaa lagu sheegay 3.2 mitir, waxaana shirkadda ay sheegtay inay samaynta diyaaradda ay u adeegsatay tiknoolajiyadda casriga ah si loo hubiyo in ay hawada u geli karto sida la mid ah diyaaradaha kale ee caadiga ah. kuraasta gudaha iyo qaabka dadku ay uga safraan ayaa sidoo kale ka duwan diyaaradaha kale ee caadiga. Huge thank you. dhawaaqa motoorka diyaaradda ayaa sidoo kale ay shirkaddu sheegtay in uu aad uga yar yahay diyaaradaha kale. shirkadda Airbus waxay maalgelinaysaa sidii looga faa'iideysan lahaa tiknoolajiyadda casriga ee dunida kusoo kordhaysa si ay hormuud ugu noqoto duulimaadyada mustaqbalka, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka shirkadda Airbus. sheegtay in aanay hadda diyaar u ahayn diyaaraddu in ay qaado rikaab maadaama ay weli ku socoto tijaabooyin. shirkadda ayaa qiratay in nashqadeynta diyaaraddu ay aad uga adkayd nashqadeynta diyaaradaha kale. sanadkii 2007 ayay sheegtay shirkadda Boeing ee dalka Mareykanka in ay soo saari doonto nooc cusub oo diyaaradeed lana kaashan doonto hay'adda hawada sare ee Mareykanka. maruu warbaahinta kula hadlayay bangiga dalka Singapore, wuxuu madaxweynaha shirkadda sheegay in tiknoolajiyadda cusub ay wax badan u sahashay shirkadaha sameeya diyaaradaha. shirkadda duulimaadka ee KML ayaa iyaduna sanadkii lasoo dhaafay shaacisay in ay maalgelin doonto sidii loo sameyn lahaa nooc cusub oo diyaaradeed, taasoo ay sheegtay shidaalka ku baxaya ay aad u yaraan doono. Huge thank you.